Maka waa goobta ugu barakaysan dhulka guudkiisa waana gurigii Ilaahay ee ugu horeeyay ee ay dhisaan Nabi Ibraahim iyo Ismaaciil. magaalada Maka waxa ay soo martay qarniyo iyo qooman badan oo isaga dambeeyay iyadoo Maka asalkeeda hore ay ahayd goob qalalan oo aan lahayn biyo iyo baatoona. qarnigii 7aad ee milaadiga waxaa ku sii dhex faaftay magaalada Maka iyo ehelkeeda diin la'aan, caabudidda sanabyada iyo samaynta xumaanta. kooriyada magaalada Maka ay ahayd goob loo gaar yeelay caabudidda Ilaahay oo kaliya, waxaana deganaa qabiilka reer Quraysheed iyo jufooyinkiisa ka sii farcama. reer Quraysheed waxay mas'uul ka ahaayeen daryeelidda Kacbada, sanabyada iyo adeegidda xujaajta. sumcad iyo karaamo badan baanay kaga heleen qabiiladii Carbeed ee kale, waxaanay Maka noqotay goob saameyn weyn ku yeelata dhammaan caalamka oo dhan kadib markii uu ka soo dhex baxay nebi xambaarsan fariinta islaamnimada oo ah in Alle loo gaar yeelo caabudidiisa. guryaha reer Haashim waxay ahaayeen kuwo sharaf gaar lahaa, waxaanay jiha gaar kaga toosnaayeen Baytul Xaraamka. guriga Cabdulmudallib bin Haashim waxa uu ahaa gurigii uu ku dhashay nabigeena sallallahu alayhi wasallam, waxaana uu dhintay rasuulka aabihii bilayor ka hor intii aanu dhalan. waxaana si weyn ugu farxay dhalashada nebiga awowgii Cabdulmudallib bin Haashim, isagoo markiiba u qaaday Kacbada dhexdeeda, waxaana uu bixiyay Muxamed sidii caadada u ahayd reer Quraysheed. awowgii waxa uu u diray rasuulka baadiyaha si ay u soo naasnuujiyaan reer Banu Sacad, isla markaana uu u helo hawo saafi ah, koritaan fiican iyo aftahannimo. 3 sano kadib waxa uu u soo laabtay naxariista iyo xanaanada hooyadii, taas oo aan adduunka ku lahayn isaga mooyaane. xikmadda Alle, rasuulka hooyadii Aamina bintu Wahab waxay geeriyootay iyada oo safar kaga soo socota magaalada Madiina, waxaana lagu soo aasay deegaan u dhaxeeya Maka iyo Madiina loona yaqaan Abwaa. rasuulkuna waxa uu markaa jiray 6 sano, waxaana mas'uuliyadiisii soo qaatay awowgii Cabdulmudallib. jacaylka uu qabayna waxa uu markasta fadhiisin jiray gogoshiisa, isagoo ku faani jiray jacaylka uu u hayo ilmaha yar. laakiin daryeelkaasi ma sii waarin waxaan ka ahayn 2 sano kaliya, waqtigaas oo uu geeriyooday rasuulka awowgii Cabdulmudallib. rasuulkuna waxa uu markaa uu jiray 8 sano. kafaaladiisa iyo koritaankiisaba waxaa markaa degta u soo ritay rasuulka adeerkii Abu Daalib, waxaanuu ka mid noqday carruurtiisii oo uu ku ahaa 7. markii uu rasuulku gaadhay 12 jir, adeerkii Abu Daalib ayaa u kaxaysay safarkiisa ganacsi ee ay ku tageen magaalada Shaam. markii ay marayeen meesha Busra laydhaa ayaa waxa ay la kulmeen nin raahib ah oo rasuulka ku arkay astaamaha nebinimada, waxaana uu adeerkii uga digay in uu ka ilaaliyo khatarta Yuhuudda. adeerkii Abu Daalib waxa uu ku soo celiyay rasuulka Maka si uu ugu barbaaro akhlaaqda, xishoodka iyo ka fogaanshaha caabudidda asnaamta ee uu kaga soocan yahay carruurta qayrkii. markii rasuulkeenu gaadhay 15 jir, waxa uu adeeradii kala qayb galay dagaal loo yaqaanay Xarbul Fujaar, waxaana uu markaa rasuulku u diyaarinayay leebabka wax lagu gano. sidoo kale waxa uu ka qayb galay heshiis lagu qabtay guriga Cabdullaahi bin Jadcaan ee loogu hiilinayay dadka masaakiinta, soo galootiga iyo dadka la dulmo. waxaana uu Alle ka ilaaliyay xilligii dhalinyaradiisa in uu ku dhaco wixii ay ku dhaceen dhalinyaradii jaahiliinta ee ahaa tumashada, samaynta faaxishooyinka xunxun. waqtigaa waxaa sida cadceedda loo arkay toosnaanta iyo habdhaqankiisa wanaagsan ilaa ay ku magacaabeenba Amiin. markii rasuulkeenu gaadhay 25 jir, Marwo Khadiija bintu Khuwaylid oo ahayd gabadh ganacsato ah ayaa rasuulka u dooratay in uu safarkeeda ganacsiye Shaam uu kula wehelyeelo addoonkeeda Maysara, waxaana uu markaa rasuulku u soo gutay sidii ugu fiicnayd.
maysarana waxa uu ka soo laabtay safarkiisii isagoo oo marwe khadiijo uga warramay cajaa'ibaadka uu ku soo arkay rasuulka sida ilaalinta ammaanada iyo akhlaaqdiisa aadka u sarraysa marwe khadiijo waxa ay ka heshay tilmaamahaas wanaagsan ee gabadh weliba ka rajaysa in uu yeesho ninka ay mustaqbalka nolosha la wadaagi lahayd waxaanay marwe khadiijo isku dhiirigelisay inay rasuulka u soo marto mid ka mida dadka ugu dhow rasuulkuna waa uu oggolaaday isla markaana waa uu guursaday marwe khadiija isagoo da'diisu tahay 25 jir waxaa tegay sannado badan moxamed ibnu cabdilaahina waxa u sii siyaaday kabaari noqoshada caabudidda sanabiyada iyo xadgudubyada waxaanay marwe khadiijo ku sifaysay xabiibkeenna mid lahaa astaamahan wanaagsan waxa uu ahaa mid xidhiidhiya rixinkiisa waxaanu caawiyaa ka taagta daran waxaanu waxsiiyaa ka waxla waxaana uu kaalmeeyaa qofka dhibaataysan markii reer quraysheed ay go'aansadeen in kacbada ay dib u dhisaan isla markaana ay waxyeeleeyeen daadadku ayaa waxay isku qabsadeen ciddii dhagaxa sharafta leh dhigi lahayd goobtiisa waxaanay ku sigteen inay isku dilaan markii dambe waxay isku waafaqeen in uu kala xukumo qofka ugu horreeya ee soo gala baytulxaraamka waxaana noqday qofkii ugu horreeyey rasuulkeenna moxamed waanay ku farxeen dhammaantood rasuulku waxa uu goglay go waxaana uu duldhigay dhagaxii madooba isla markaana waxa uu ka dalbaday reerihii isku khilaafay in 4 daraf ay kor u qaadaan gacmihiisa sharafta leh baanu ku dhigay goobtiisii waanay ku farxeen dhammaantood sida cadaaladda ah ee uu sameeyey markii xabiibkeennu da'diisu ay ku sii siqaysay 40 sanno isla markaana uu gaar u noqday inuu ku noolaado hogga qaaru xira isagoo u fiirfiirsanaya samayska koonkan iyo xaalka qoomkii ayaa habeenada bisha Ramadaan ka mid ah isla markaana uu ku sugnaa hogga qaaru xira ayaa waxa u yimid Jibriil calayhi salaam isagoo ku soo dejinaya waxyiga uga imanaya rabbigii koonkan lahaa Jibriil calayhi salaam wuxuu ku yidhi nabiga akhri nabiguna wuxuu u jawaabay ma ihi mid wax akhriya Jibriil wuu ciijiyay rasuulka waxaanu qabtay cunaha ilaa uu rasuulku dhib weyn kala kulmay kadib uu sii daayay haddana Jibriil wuxuu ku yidhi nabiga akhri nabiguna wuxuu u jawaabay ma ihi mid wax akhriya Jibriil waxa uu ku dul akhriyay aayadahan اقرأ باسم ربك الذي خلق ku akhri magaca rabbigaaga wax walba abuuray خلق الإنسان من علق بني آدم كأبوري حنجر اقرأ وربك الأكرم أخري ربي قاقانا كشرفت يديك دبضا الذي علم بالقلم مخلوق قنيك وحكبري علم الإنسان ما لم يعلم وحانو بري آدم كوحانو أقون اللهين rasuulkii oo gariiraya oo argagaxsan ayaa ku soo laabtay gurigiisii waxaana uu marwe khadiijo ka codsaday inay dado waxaanay marwe khadiijo dejisay rasuulka iyadoo u kacaysa mid ka mida aqaariibteeda oo ahaa wariqatu ibnu noofal oo haystay diinta nebi ciise waxaana uga warramay inuu yahay waxyigii nebi muuse ku soo degi jiray muddo ayuu ka maqnaa rasuulku waxyigu isagoo ka warwarsan intaa kadib waxaa ku soo degay waxyigii si qalbigiisa loogu sugo nebinimada يا أيها المدثر كاغن استودوبا يو قم فأنذر كعودتك وديك وربك فكبر ربي أنا وينيه وثيابك فطهر أركاغنا نظيفي والرجز فاهجر عابدتانك أصنانتنا كديرو waxaana xabiibkeenu bilaabay in uu dacwadda ugu yeedho aqaariibtiisa si sir ah in cibaadada alle loo gaar yeelo waxaana ka mid ahaa dadkii ugu soo hor ajiibay qaadashada diinta islaamka khadiija oo ahayd ooridii rasuulka abubakr sidiiq cali bin abi taalib iyo sayd ibnu xaaritha waxaana uu rasuulku dacwadda si sira u waday muddo 3 sanno ah waxaana wakhtiga ka islaamay tiro yar oo ka mida qabiiladii farabadneed ee reer quraysheed
warkii ayaa si degdega u gaadhay hoggaamiyaashii reer quraysheed wax saamayn ah agtooda kama yeelan warkaasi waxyigu waxa uu soo degaba waxaa markii dambe rasuulka alla ku amray aayaddan وأنذر عشيرتك الأقربين udig tolkaaga kugu dhow wixii markaa ka dambeeyey rasuulku wuxuu isugu yeedhay dhammaan reer haashim isagoo ku dhiirigelinaya inay soo galaan diinta islaamka kana tagaan caabudidda asnaamta iyo inay kula garab istaagaan faafinta iyo qaadashada diinta islaamka waxaa markiiba ka hor yimid oo ka cadhooday adeerkii abulahab hase yeeshee adeerkii abudaalib ayaa uga hiiliyey oo rasuulka ugu ballanqaaday inuu mar kasta garab taagnaan doono sidoo kale rasuulku wuxuu u digay reer quraysheed isagoo ku leh reer qurayshow reer cabdimanaafow reer qusayow reer cabdimutalibow ka badbaadiya nafiihina naar maxaa yeelay anigu xagga alleh waxaan idinka hayaa dhib iyo dheeftoona ma jiro faadimo bintu muxamedey ka badbaadi naftaada naar maxaa yeelay anigu xagga alleh waxaan kaaga hayaa dhib iyo dheeftoona ma jiro waxa aad leedihiin qaraabo ay saaran tahay in aan xidhiidhiyo waxyigu waxa uu markaa si hadalhayna uga dhex muuqday gudaha reer quraysheed waxaana uu alle rasuulkiisa ku amray aayaddan si uu daaha uga faydo faafinta diinta islaamka فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين muuji waxa lagu farayo kana jeedso gaalada waxa uu soo warinayaa imaamu axmed inuu yidhi ibnu cabbaas maalin maalmaha ka mida rasuulku wuxuu koray buurta safa waxaana uu rasuulku yidhi yaa sabaaxaa war isugu kaalayaay waxa isugu soo ururay dhammaan reer quraysheed oo dhan yar ilaa weyn waxaanay rasuulka ku yidhaahdeen maxaa dhacay ka warrama haddii aan idiin sheego inuu cadow idiin soo weerarayo subaxnimada amba galabnimada may rumaysan lahaydeen haa si dhab ah haddaba waxaan ahay diga idinka diga cadaab daran adeerkii abulahab ayaa si cadho leh ugu jawaabay rasuulka oo ku yidhi hoogaa kuu sugnaadee ma waxan baad noogu yeedhay allaha raxmaanka ayaa ugu soo jawaabay suuratulmasad تبت يدا أبي لهب وتب hoow wuxuu u sugnaaday gacmaha abulahab waanu halaagmay ما أغنى عنه ماله وما كسب waxba kamay tarin xoolihiisa iyo wixii uu shaqaysanayayba سيصلى نارا ذات لهب wuxuu geli doonaa naar olol u saaxiiba وامرأته حمالة الحطب ooridiisii xaabo xambaarista badnaydna في جيدها حبل من مسد waxaa qoorta loo gelin doona xadhig xig ah wixii markaa ka dambeeyey rasuulku wuxuu sii ballaadhiyey faafinta diinta islaamka isagoo u caddaynaya dullinimada uu leeyahay cibaadada alleh oo cid kale lala simo arrintaas waxaa aad uga sii cadhooday kuwii ku madax adeegay gaalnimada ee ay ka mid ahaayeen abulahab ubayata binu khalaf weliid binu cutba iyo cuqbata ibnu abi maciir waxaanay markaa bilaabeen inay si toos ah iyo si dadbanba ula dagaalamaan dacwadda soo curdunoobaysa waxay raggaasi maleegeen qorshe ay rasuulka kala hortagaan islamarkaana ay siiyaan maal badan boqornimo haween iyo in cadaadis badan la saaro adeerkii abudaalib si uu rasuulku faraha uga qaado faafinta diinta islaamka laakiin qorshahaasi ma guulaysan rasuulka allena waxa uu sii joogteeyey faafinta dacwadda iyadoo maalin kasta ay sii kordhaysay tirada dadka diinta islaamka soo gelaya hoggaamiyaashii reer quraysheed aad ayay uga xumaadeen diintan labaad ee dhaqso u soo koraysa waxaanay markaa bilaabeen in ciqaabiyo jirdil ah lagu sameeyo dadkii ducafada ahaa ee qaatay diinta islaamka kooxo kalena waxaa loo diyaariyey in rasuulka alleh ay ku dhibaan meel kasta oo uu marayo iyagoo dhulka ugu daadinaya qodaxyo islamarkaana u diidaya inuu kacbada ku tukado marmarka qaarna marka uu tukanayo waxa ay dhabarkiisa ka saari jireen qurunka uuska geela laakiin rasuulka iyo asxaabtii diinta islaamka soo gashayba waxay diintooda ku qabsadeen gowsdambeedkooda iyagoo u adkaysta dhibtaas
maalin maalmaha ka mida waxa uu rasuulku si sira isugu yeedhay guriga al-arqam asxaabtii diinta alle soo ajiibtay isagoo rasuulku ku akhrinayo aayaadka alleh kuna dhiirigelinayo inay alle dartii ugu sabraan gaaladii qureysheed waxay sii siyaadiyeen jirdilka ay ku sii hayaan asxaabtii diinta islaamka qaadatay waxaanay rasuulka magaciisii amiin ugu beddeleen inuu yahay saaxir waalan oo gabyaa ah waxa uu rasuulku u soo jeediyey asxaabtiisii inay ka haajiraan maka oo ay tagaan dhulka xabashida asxaabtii waxay si dhuumashaa u baxeen bishii rajab ee sannaddii shanaad ee soo saaridda nebiga waxaanay markaa ahaayeen 12 nin iyo 4 dumar ah waxaana ka mid ahaa saxaabiga cusmaan bin cafaan iyo gabadhiisa ruqaya bintu rasuul sala allahu calayhi wasalam muddo kadibna waxaa ka daba tegay 88 nin iyo 19 dumar ah islaamkii jawi cusub baa u abuurmay markii ay islaameen cumar bin khadaab iyo xamse ibnu cabdilmutalib oo ahaa adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa waxay islaamkii maka joogay kacbadda ugu soo baxeen iyagoo 2 saf ah oo kor u qaadaya takbiirta alleh allaahu akbar adeerkii abudaalib waxa uu go'aankiisii adkaa uu ku qaatay in uu rasuulka hiil iyo hooba la garab taagnaan doono inta uu dunidan hawadeeda neefsanayo waxaana uu adeerkii isugu yeedhay tolkiisii ee reer haashim iyo reer cabdimudalib waxaana uu ka dalbaday inay kula garab istaagaan uhiilinta inankaaynu adeerka u nahay moxamed amiin dhammaantood gaalkoodii iyo islaamkoodiiba si midaysan ayay u aqbaleen hogaamiyaashii gaaladii qureysheed iyo qabaa'iladii kale carbeed ayaa shir degdeg ah ka yeeshay waxay ku heshiiyeen reer haashim waxaanay go'aankoodii ku qoreen haragsaan iyagoo sudhay kacbada in reer haashim la saaro cunaqabateen ciriya dhul ah iyo in godoominta lagu hayo ilaa ay faraha ka qaadayaan rasuulka moxamed uhiilintiisa reer haashim waxay gowstambeedkooda dhigteen hiilkoodii waxaanay go'doomintu ku socotay muddo 3 sanno ah macluushooduna waxa ay gaadhay heer ay cunaan caleemaha dhirta iyo hargaha sannaddii 10aad ee laga joogo soo bixidda nebiga 5 ka mid ah hogaamiyaashii reer qureysheed ayaa go'aan ku qaatay inay heshiiskan dulmiga badan ay soo gebagabeeyaan abujahal ayaa isku dayey inuu ka hor istaago laakiin waa uu ku guuldaraystay ooda ayaa laga soo qaaday rasuulka iyo dhammaan reer haashim sidaas ayuu ku soo gabagaboobay go'doomintaasi